بسم الله. السلام عليكم. اسكو عشان اسحتي قليل وحرجينا في عنتين سو دواده دhalin yaranimo waqtiga dahabiga ah waqtiga kala baxa nolosha qofka bani aadamka xilliga dhalin yaranimadu maanta waad leedahay laakiin berise ma hubtid waxa jira hal waqti hadii aad lumiso noloshaadu idil aad ka shalayn doontid waqtigaasi waa dhalin yaranimada ma isticmaalaysaa mise waad burburinaysaa waxaad ogaataa waqtiga dhalin yaranimadu waa fursad aan weligeed soo laaban doonin waa marxalad qofka ku jira uusan dareemeynin inuu ka sii baxayo balse uu arkayo oo kaliya markuu ka sii baxo ama uu ka gudbo markaas uu kaliya ayuu ku baraarugayaa waa marxalad dayman ah ee fursad dahabi ah oo loo baahan yahay qofka dhalinyarada inuu ku baraarugo oo uu ka faa'iideysto dhalinyaranimadu ma ahan cimri ee waa mas'uuliyad haddii aad qaadatid oo aad ka faa'iideysatid aad ku faani doontid haddii aad lumisid oo aad khasaarisidna aad ka qowmameyn doontid sidaas awgeed dhalinyaranimadaada ma isticmaalaysaa mise waad ka sii baxaysaa ma isweydiisay sababta dadka da'da ay mar walba ay u dhahaan haddii aan ahaan lahaa dhalinyaro haddii aan waqtigaaga ku jiri lahaa waxay u dhimanayaan oo ay u rafaadayaan inay helaan waqtiga fursadda iyo enerjiga aad gacantaada ku haysatid maanta waxaan furaynaa waqtiga qasnadaha dahabiga ah ee xilliga dhalinyaranimada iyo sida dhallinyaradeena Soomaaliyeed aan uga badbaadi karno qoomamada beri oo aan uga faa'iideysan lahayn dhallinyaranimadeena iyo waqtigeena dahabiga ah si saxan oo quman waxaa jiray oday Soomaaliyeed oo aan ahaa kaasoo la kulmay wiil dhalinyaro ah oo fadhiid ah kaasoo waqtigiisa iyo enerjigiisa isaga khasaarinayay iska fadhi iyo iska hadal maalayacni ah maalmaha ka mid ah ayuu la kulmay wiilkaasi kadibna waxa uu ku yiri wiilkaygiiyow ma ogtahay in dhalinyaranimadu ay tahay sidii baraf gacanta lagu hayo oo kale barafkaasi waa uu dhalaalayaa haddii aad isticmaashid iyo haddii kaleba waqtiga dahabiga ah ee dhalinyaranimadu waa sidaas oo kale haddii aad isticmaashid waad ka faa'iideysan kartaa sidoo kale haddii aad isticmaalina labadaba waa uu dhamaanayaa oo waa laga gudbayaa marxaladda dhalinyaranimadu waa sidaas oo kale baraf gacantaada ku jira kaasoo dhalaalaya haddii aad ka faa'iideysid iyo haddii kaleba waa uu dhalaalayaa oo uu dhamaanayaa marka barafkaasi gacantaada ku jira iyo waqtigaasi dahabiga ah ee dhalinyaranimadu ma ka faa'iideysanaysaa mise hortaada ayuu ku dhalaalaya wiilkaasi markaas ayuu baraarugay oo maskaxdiisa ay soo jeesatay waxa uu ogaaday in xooggiisa waqtigiisa iyo enerjigiisaba ay yihiin wax dhamaanaya waxa uu bilaabay in waqtigiisa iyo saacadihiisa uu xisaabiyo sidii dahabkii oo kale oo ugu xisaabtamo uu ka faa'iideysto sheekadaasi waa sheeko dhammaantan inagu socota qof kastoo dhalinyaro ah oo maanta nool ma ka faa'iideysanaysaa waqtiga dahabiga ah ee dhalinyaranimada mise barafkaasi qaaliga ah hortaada ayuu ku baaba'ayaa oo ku dhalaalaya taariikhda aadanaha markaan dib u milicsano waqtiga dhalinyaranimada markaas waxaa loo arki jiray wakaaladda isbeddelka iyo kala baxa laga soo bilaabo xilligii nabigeena maxamed nabadgelyo in haliis korkiisa ahaatee ilaa iyo kacdoonkii aqooneed ee qarnigan 21aad zaman kasta iyo waqti kasta dhalinyaradu waxay ahaayeen wadnaha go'aaminaya dhaqaajinayana isbeddelada dunida ka dhaca dhalinyaranimadu waa xilli nolosha ka mid ah waa xilad maskaxeed waa mas'uuliyad jireed waa rabitaanka isbeddelka iyo awoodda uu qofku u leeyahay inuu wajaho ama uu xalliyo dhibaato jirta haddii ay dhalinyaradu ay lumiyaan ay khasaariyaan waqtigaasi dahabiga ah bulshadu waxay luminaysaa mustaqbalkooda mustaqbalka bulsho kasta waa dhalinyaradooda sida lagu sheegay warbixintii Global Youth Productivity 2025 qofka dhalinyarada ah ee dhisaya naftiisa u dadaalayana mustaqbalkiisa kaasoo dhisaya xirfado iyo qiyamkiisa toosinaya inta u dhaxaysa 18 ilaa 28 dhalinyaradaasi waxay boqolkiiba boqol ka guul badan yihiin kuwa kale marka loo eego kuwa sodomiyada ka soo baraaruga oo markaasi hawsha bilaaba waxaa fursad badan oo boqolkiiba boqol ka guulo badnaan doona kuwa hadda baraaruga waqtiga dahabiga ahna ka faa'iideysta ee ka mid noqo kuwaas gaar ahaan Soomaalida markii loo eego 70% waa dhalinyaro taasoo macnaheedu ah inaan nahay qasnadaha dahabka ah ee qaranka laakiin xaaladda hadda aan ku jirno iyo waaqicna markii lagu eego ma nihin kuwa laga faa'iideysanaya waxaa mustaqbalkeena xadaya burburinaya oo baabi'inayana siyaasiyiin calooshadu shaqaystayaal ah iyo odayaal fara badan oo juhalo ah waa inaan ku baraarugnaa inaan nahay qasnadaha keedka qaranka oon ka faa'iideysanaa waqtigeena iyo enerjigeena Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ayad quraan ku leeyahay Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba alle waxa uu idinka abuuray daciiftinimo oo ah caruurnimo kadibna daciiftinimadii wuxuu idinka dhigay kuwa xoog badan oo xoog leh micnaheedu tahay dhalinyarnimo kadibna xoogii wuxuu idinkaga dhigay oo idinku bedelay daciiftinimo oo ah duqnimo islaamku wuxuu si cad inoogu muujinayaa in xoog iyo dhalinyarnimadu uu yahay oo kaliya marxalad laba daciiftinimo dhexdooda ah ku dhex jirta caruurnimo iyo duqnimo oo ah labaduba waa laba daciiftinimo oo qofku waxba uusan awoodin waxna uu qabsan karin oo u baahan caawinaad iyo kaalmo waa buundada saxda ah haddii aad ka faa'iideysato aad ku dhisan kartid ifkaaga iyo aakhiradaada nabigeena maxamed nabadgelyo in haliis korkiisa ahaatee waxa uu leeyahay ka faa'iideysta dhalinyaranimadiina
ka hor duqnimadiina. Dhallinyarnimadu waa marxaladaasi dahabiga ah ee u dhaxaysa labada daciiftinimo. Sidaas awgeed waa hal fursad, waa hal marxalad qofkii ka faa'iideysta una isticmaala si sax ah unbaa guuleysta oo keliya. Marxaladaasi waqtigaasi dahabiga ah dib lagugu soo celin maayo, mana kuu soo laabanayaan. Haddii aadan ku baraarugin oo aadan si sax uga faa'iideysaninna, qoomamo iyo shalayto aanan dhammaanin ayaad weligaa ku jiri doontaa. Hadda ku baraarug oo ka faa'iideyso marxaladaasi qaaliga ah oo dahabiga ah. Faa'iidooyinka xilliga dhallinyarnimadu waa kuwo bad ah oo aan la soo koobi karin. Energy fara badan, awood iyo xoog, fursado fara badan aad wax walba ku samayn kartid. Fursado cilmi iyo fursado waxbarasho oo joogto ah oo aan dhammaanayn. Dhisidda aasaaska qoyskaaga iyo mustaqbalkaaga, u adeegidda naftaada iyo bulshadaada. Caqabadaha, qoomamo aan dhammaad lahayn markii aadan ka faa'iideysanin oo aadan si fiican u soo isticmaalin dhallinyarnimadaada. Shalayto joogto ah iyo haddaan sidaas fali lahaa, haddaan sidaas samayn lahaa oo aan dhammaad lahayn. Dhallinyarnimadu waa waqtiga ugu adag ee qofka bani'aadamka uu maro. Sidaas awgeed, waqtigan dahabiga ah iyo fursadan dahabiga ah ha khasaarinin oo ha iska luminin. Ka faa'iideyso si sax ah u isticmaal. Si aad uga badbaado qoomamada beri. Insha Allah. Dhalinyaro mid ogaada, adduunka maanta jira waxa uu rabaa in waqtigaaga uu ka dhigo alaab laga ganacsado. Scrolling aan dhammaad lahayn iyo trends aan kala joogsi lahayn oo ah maalin kasta sii socda, soo socda oo sii socda. Ogow social media iyo trendskaasi iyo scrollingkaas maalayacniga ah waxay ka hadayaan dahabkii ugu qaalisanaa noloshaada oo ah dhallinyarnimadaada. Waqtiga dahabiga ah ee dhallinyarnimadu ma ahan kaliya inaad meel iska fadhiisato, sheeko isaga jirto, maalayacni aad ku lumisid. Ee waqtigii dhab ahaan aad u noolaan lahayd. oo waqtiga aad noqon lahayd qof dhab ah, wax dhab ahna aad qabsan lahayd noloshaada iyo naftaada u faa'iido u ah. Noqo qof go'aan leh, mabda' leh, qiyam leh, akhlaaq leh oo ka faa'iideysta dhallinyarnimadiisa, ku toosan jeediisa, yaqaanana wax uu rabo, meesha u socdo iyo nolosha hadafka uu ka leeyahay. Xilliga dhallinyarnimadu waxaad leedahay murqaha maskaxda ee ugu firfircoon. Waxaad haysataa energy aan xad lahayn iyo waqti aan dhammaad lahayn. Haddii aadan maanta aadan dhisin aasaaskaaga iyo base-kaaga adag, berito wax kastoo imaada ayaa ku duminaya. Si fudud ayaana ku jabi doontaa. Waxaad noqon doontaa qof jilicsan oo aan lahayn sal adag. Dabeel kastoo imaada ayaana ku duminaysaa. Hadda waxaan kula wadaagay 5 talaabo oo ficil ah oo hadda aad samayn kartid si aad uga faa'iidaysid waqtiga dahabiga ah ee dhallinyarnimada. Qodobka koowaad, rulka 8 saac. 8 saac oo hurdo ah. 8 saac oo shaqo ama waxbarasho ah. 8 saac kale oo naftaada, familkaaga iyo xirfadahaaga horumarinta shakhsiyadeed aad uga faa'iidaysanaysid. U qaybi 3daas qaybood noloshaada. qayb horumarin ah, qayb naftaada ah iyo qayb hurdo ah. Ha hilmaamin oo hadda ka dhig sharcigaasi midka koowaad. Qodobka labaad, isla xisaabtan joogto ah oo maalinle ah. Isweydii maalin kasta, habeen kasta markaad seexanaysid, isweydii maanta maxaan bartay, maxaan faa'iidaystay, maxaan noloshayda ku soo kordhiyay, qaladaadkayga maxaan ka bartay, sideen u qaabeeyaa noloshayda. Qodobka saddexaad, yaree screen time-ka. Jooji scrollingka social media ee 24 saac. Jooji iska dhex fadhiga maalayacniga ah. Fadhi ku dirirka maalayacniga ah. Waqti kasta oo noloshaada u rooneen, jooji oo xadid. Qodobka afraad, maalgasho xiriiradaada. Dhis network adag. Ogow, saaxiibadaada maanta waa mustaqbalkaaga beri. Dooro asxaab iyo team kugu dhiirigelinaya horumarkaaga iyo horsocodkaaga nololeed. Ee ka fogow kuwa ku niyad jebinaya, baabi'inaya oo burburinaya noloshaada. Qodobka shanaad, dhis spiritual shell. Waqtiyo diini ah oo aadaabi ah. Salaada, u baarifalka waalidkaaga iyo quraan akhriska joogtada ah waxay kugu caawinayaan albaab kasta ay kuu furayaan. Waxayna barakaan dhammaad lahayn gelinayaan waqtigaaga iyo enerjigaaga. Karig oo ka faa'iideyso kuwaas. Ogow saaxiib, hadduu Ilaahay naftu kuu daayo maalin ayaa imaan doonta adigoo kursi dhexdiisa dhex fadhiya. Dib u milicsanayana noloshaada iyo mustaqbalkaaga dhallinyarnimo. Gacmahaagu ay gariirayaan, indhahaagu caad saaranay, maqaarkaaguna uu soo laalaabmay oo uu qalalay. Waa marxaladii labaad ee daciiftinimada. Maalintaasi ma doonaysaa in markaad dib u milicsatid dhallinyarnimadaada aad noqotid qof ka qowmameynaya, haddaan sidaas samayn lahaa, haddaan waxaas fali lahaa. Mise waxaad doonaysaa inay kuu noqoto aad baan ugu faanaya wixii aan soo qabsaday. Tallaabo kastoo aan soo qaaday iyo wax kastoo aan sameeyay aad baan ugu faanaya, waan ku faraxsanahay. Waxa ku sugaya kaliya labadaasi dareemood iyo labadaasi oraahood midkood. Go'aanka aad maanta qaadatid iyo sida dhallinyarnimadaada uga faa'iidaysatid ayaana qaabeynaysa oo go'aaminaysa siday noqon lahayd labadaasi weyrood midkood inaad isticmaasho. Hadda baraarug oo hadda go'aankaaga qaado oo ka faa'iidayso waqtiga dahabiga ah. Ma waxaad rabtaa inaad noqotid qof isdhisay, dhaxal uga tagay dadkiisa iyo dalkiisa, mise qof waqtigiisa dahabiga ahaa ku lumiyay raaxo raqiis ah iyo maalayacni aan dhammaad lahayn.
doorku iyo doorashadu maanta waa adiga saaxiib gacantaada ay ku jirtaa haluminin dahabkaaga oo ah dhallinyarnimadaada dhisidda dhallinyarnimadu waa mashruuca iyo beyska aasaaska dhisidda SG community nagu soo bir SG community subscribe saar like saarna videoga si ay waqtigaaga dahabiga ah uu u noqdo natiijooyin dhab ah insha Allah waxaan iska caawinaynaa inaan u dhisano qiyam toosan maskax adag akhlaaq suuban iyo horumarin nololeed oo dhab ah aan aqoonin qof iska socda ee u nolow hadaf dhab ah u nolow ujeedo lahaw jiho nololeed kaasoo aad maalin kasta aad u dadaalaysid aad u talaabaysid subscribe saar si aad uga mid noqotid jiilka isbedelka jiilka dahabiga ah jiilka mucjisada ah surprise generation SG community waxaan ku weydiinayaa su'aasheedii ugu dambeysay haddii ay noqon lahayd dhallinyarnimadaada lacag iyo maalgelin lagu dhiibtay hadda ma khasaare ayaad ku jirtaa mise faa'iido aad iyo aad baad u mahadsantihiin asxaabtayda qaliga waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iidaysano waqtigeena dahabiga ah dhallinyarnimadeena aan uga faa'iidaysano sidii ugu saxaneed ugu fiicneed uguna mudneed insha Allah ku soo bir SG community halkan waan isku dhisnaa waan isku horumarinaa waan isku kaalmaynaa haseegin fursaddan jiilka waa jiil dahabi ah oo wada koraya iscaawinaya oo iskaalmaynaya subscribe saar like saar videoga una share garay qof adigoo kale ah waa hoygaaga waa hoygeena waa hoyga jiilka mustaqbalka dhallinyarada aad iyo aad baad u mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga aan ka faa'iidaysano waqtigeena dahabiga ah insha Allah waxaan noo balanaa videoga video xiga كل تدم بوحي سلام مع السلامة